Jilaga Amjad Khan ayaa ku dhawaaday inuu ka baxo filimka Sholay 1975 maxaa yeelay qoraaga filimka Javed Akhtar ayaa dhaliilay codkiisa doorkii filimka Gabbar Singh waxaa lagu bedelay rabay Danny Dezongba balse ugu dambeyn Amjad Khan ayaa loo dhaafay. Ma ogtahay Sari Devi kaliya 13 ayay ahayd markii ay ku jilaysay in Raja Khanna eedadii oo aabihii qabad tahay filimkeedii Tamil ee loo yaqaanay Manduru Madiju. Ma ogtahay Devika Rani waxay ahayd jilaagii ugu horeeyay ee shahaadada koowaad ka qaata sameynta filimada. Ma ogtahay magaca Hrithik ee dhabta ah waa Hrithik Nagraj mana ahan Roshan. Ma ogtahay filimka Kahona Pyar Hai waxaa lagu daray buugga dhacdooyinka adduunka lagu qoro ee Guinness Book of Records sanadkii 2002 kadib markii uu ku guuleystay abaalmarinta ugu badan ee hal filim lagu qaato. Filimku wuxuu ku guuleystay wadarta 92 abaalmarin. Ma ogtahay heesta Ab Tumhare Hawale Watan Saathiyon oo ku jirta filimka isla magacaasi waa heesta ugu dheer filim Hindi ku jirta. Dhererka heesta waa 20 daqiiqo. Heesta waxaa lagu soo bandhigay 3 qaybood oo ogtahay Hindiya ayaa iibisa 2.7 bilyan tigidhada filmaanta sanad kasta waxayna ugu sareeyaan dunida oo dhan laakiinse celcelis qiimaha tigidhada waa kuwa ugu hooseeya dunida oo dhan sidaas darteedna dakhliga yihiin jab marka la barbar dhigo Hollywoodka. Ma ogtahay Bollywoodka waxaa laga soo minguuriyay Hollywoodka ku dhawaad 95% aflaanta Bollywoodka waxaa laga soo koobiyay Hollywood. Tusaale Milan, taxanaha Doom, taxanaha Krish, Doon, Jab Tak Hai Jaan, Peace, Rabot iyo kuwa oo badan waana 5% filimada ay sameeyaan oo kaliya inta badan waxay ka soo minguuriyaan filmaanta Hollywoodka. Ma ogtahay xidiga caanka ee aflaanta Bollywoodka ee dalka Hindiya Sanjay Dutt ayaa diiday inuu qaato lacag iyo hanti kale oo ay dhaxal ahaan ugu tagtay haweeney taageero u ahayd oo geeriyootay. Waxa uu sheegay in kasta uu mahad celinayo ficilka haweeneyda haddana uusan aqbali karin in uu qaato maadaama uusan la kulmin weligiis isla markaana uusan aqoon u lahayn. Bangiga ayaa atooraha u sheegay in haweeneydan lagu magacaabo Nishi Harishandra Tripathi oo 62 jir ah taasoo dhimatay bishii Janaayo ee sanadkii la soo dhaafay in ay magaciisa ku qortay lacag iyo hanti kale oo iyadu lahayd. Sanjay Dutt ayaa ka mid ahaa atoorayaasha ugu caansan ee Hindiya isla markaana haysta lacag badan. Waxa uu sheegay in uu bangiga kala shaqeyn doono habraaca sharciyeed ee lacagta loogu wareejin lahaa qoyska haweeneydan oo ka kooban 2 caruur ah iyo hooyadeed kuwaasoo degan magaalada Mumbai. Lama sheegin inta ay dhan tahay lacagta.